magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa barqo hore oo saaka ka dhacay khasaare kadib markii gaari siday shidaal oo ka koobnaa isjiid booyada ah uu gubtay waxaana durbadiiba goobta soo gaaray shacabweynaha ku nool magaalada iyagoona isku dayay inay damiyaan dhinaca kale waxaa daminta dabkaasi ka qayb qaadanayay ciidamada booliska gobolka mudug ee dowlad goboleedka Galmudug iyo waliba gudoomiyaha degmada iyo shacabka qaybahooda kala duwan markii lagu guuleystay daminta dabkaasi ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay qaabka uu dhacay iyo waliba tirada shidaal ee halkaasi ku qasaartay taliyaha booliska dowladda federaalka Soomaaliya ee qaybta Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug General Bishaar xoogaa musiibo yar ayaa ka dhacday caasimadda booyad sida shidaal tankeeda aan ku qiyaasnay ama tirada fuustooyinka ay sido 300 oo fuusto ayaa saakay abaar 2:20 dab ka kacay markii uu soo istaagay kaalinka shidaalka oo inuu shidaalka shuba rabay motorkii generatorka ahaa oo u isticmaali lahaa shidaalka shubitaankiisa ayaa waxaa ka dhashay dabkaas wuxuu ku faafay baabuurku wuxuu ahaa ku rimoor ama baabuurkan Soomaaliya u taqaano isjiidka runtii labadii baabuurba dabkii waa gaaray rimoorkiina waa gaaray gaarigii jiidayay rimoorkana wuu gaaray daba iyo dacalba marka alxamdulillah waxay ku dadaaleen ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada iyo guud ahaan shacabweynaha caasimadda inay dabkaas ay damiyaan runtii ayagoo sameeyay nafti halignimo isticmaalay jawaano ciida ayagoo isticmaalay biyo ayagoo isticmaalay booyado ayagoo isticmaalay cagafyo ayagoo isticmaalay dhagxan halgan iyo harjad iyo wax lagu qiyaasi karo jihaad ayaa dabkan uu ku damay ilaahay fadligiis alxamdulillah rabbil caalamiin ilaaha ku mahadsan dhinaca kale generaalka ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado isla markaana dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug ay siiyaan shacabka qaybahooda kala duwan ee hoos yimaada dowlad goboleedka Galmudug agabyada asaasiga oo ay kamid tahay dabdamiska isagoona dhinaca kale maamulka degmada iyo waliba shacabka ka soo jeeda deegaanadan uu kula taliyay marka uu ilaado shirka maamul goboleedyada uga soconaya Dhuusamareeb inay isugu yimaadaan kulan lagu horumarinayo deegaanka isla markaana loogu ururinayo si horumar loogu gaarsiiyo looguna soo iibiyo agab lacag ay bixiyaan halkan waxaan baa uga soo jeedinayaa dhammaan shacabweynaha reer Galmudug dowladda Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo ummadda ku nool caasimadda inay iskaashadaan oo loo sameeyo maamul goboleedka Galmudug deegaan kasta waxay xaq u leeyihiin shacabka ku nool inay helaan dabdamis iyo waxyaalaha musuubeenka looga hortago waxaan rabaa qolada koobaad oo bilaabaysa shaqadaas inay noqoto gudoomiye shacabka aad xukunto oo ku nool caasimadda gaar ahaan ganacsatada ayaa waxaan ka rabnaa in ay laga bilaabo maantay ay bilaabaan inay lacag aruuriyaan booyad dabdamis oo degdegana inay haddeertaan markii shirku naga dhammaado ka socda maamul goboleedka Galmudug ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada shirkaas markii uu dhammaado waxaan codsanayaa inaad ganacsatada fariisiso ayna sameeyaan inay gadaan baabuur degdega oo dabdamisa aad iyo aad u mahadsantiin inta waxa dheer wax khasaara haba yaraatee dhaawacna kama dhicin dhimashana kama dhicin hantida burburtana baabuurkii shidaalku saarnaa oo badbaaday motorkiisi iyo dhammaan intii inuu ka socday ahayd oo dhan labada haamood oo dabkii gaara maahane wax khasaara oo kale macal shidaalkii gudaha ku jira waa caafimaad qaba gudoomiyaha degmada ayaa dhankiisa waxa uu kaga mahadceliyay qaybaha kala duwan ee ka qayb qaatay daminta dabkaasi oo isugu jiraan taliyaasha ciidamada kuwa booliska iyo waliba shacabweynaha gobolka Galgaduud gaar ahaan kuwa Dhuusamareeb isagoona sheegay in cid walba oo taageeraysa ama ku tabarucaysa wax walba oo ay u awoodo si horumar lagu gaarsiiyo deegaanka ay soo dhaweynayaan waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sida oo Galmudug oo jananku hogaaminayo iyo dadka shacabweynaha ilaahayna waxaan ugu xamdi naqayaa inaan dabkaas macnaha oo haddana damay wax dhibaato ah oo aysan ka dhicin waxaan rabaa halkaan inaan ugu baaqo soo jeediyo dadka maaragtay ganacsatada oo ama deegaankan degan ama se deegaano kale ku maqanay halkaan jooga
waxa dhibaatada intaas la eg ay u dhacaysaa mar walbana ay hadda ka hor u dhici jirtay haddeerna inay u dhacdo ay suurtagal tahay waxaanaan haynin dabdamis waxyaabaha aasaasiga oo naga maqan ayay ka mid tahay wax walba shaqadoodu markii ay taagan tahay ayay tahay inaad heshid waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan dabdamis inaan u helno arrintaasaan soo jeedinaya cid kasta oo na tabarucaysa maanta waxyaabaha noogu baahida badano waa dabdamis inaan helno oo aasaasiga ah waayo dabkaas haddii uu sii socdo magaalada dhan ayuu gubi lahay dhibaato badan ayaa dhici lahayd dad badanaa ku barakici lahaa ummad badan baa ku naf wey lahayd laakiin ilaahay mahaddiis hadda dabkii waa la joojiyey waxaan joojinna waxaa lagu joojiyey badeello iyo gacmahanaga iyo ciid dad masaakiin oo ilmo oo ardaaho ay gurayaan marka waxaan rabnaa dadka waxaysto ilaahay waxsiiyey inayna gacan siiyaan arrintaasna maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto